السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان إن ودا السلام الصومالي وين ميل كستو دنيا دحلة كجوبتان ولا ليال وولالكين عيسى شكر علي. waxaan rabaa inaan in la wadaago warka soo yeeray whatsapp wuxuu sameynayaa mar dhow update kaasoo ah in uu numberkaada iyo isku xiri doono Facebook macluumaadkooda dhan uu la wadaagayo la share gareynayo Facebook. marka whatsapp iyo Facebook hadda waxa ka wada dhaxeyn doona wixii hadda ka dambeeyo wada shaqeyn waa sidii ayagoo wada shaqeyn ba ka wada dhaxeynayso. marka walaalayaal arinta waxay dadka dhibaato ugu keenaysaa in informationkaado dhan lala wadaagayo Facebookna kadib si soo ma arkin waxyaabaha faaniska kala ah inuu qofka page-kiisa soo saaro qof aadan ba adiga aqoonin adoo Facebook ku jirna waxa laga yaabaa qof ku yaqaano kale oo numberkaada haya inuu u soo saaro macluumaadkaada oo meesha aad ka arko qofkii. marka arinta waxaad kaga hortagi karaysaa walaalayaal sidaan soo socota waan idin tusayaa qaabkan ana hadda aan idin tusi doono tixraac. marka kadib waxaad ka badbaadaysaa in macluumaadkaada ama telephone numberkaada iyo WhatsApp iyo Facebook ay isla wadaagaan oo ma aragta uu WhatsApp oo kaliya ku ekaado. waxaadna arinta si aad ugu hortagtid aad ku haysataa muddo dhan 30 maalmood oo ku eg September 30keeda wixii ka dambeeyay ma bedeli karaysid oo waxa waaye numberkaada iyo waxa la isku xirayaa iyo Facebooka. marka walaalayaal arinta waa inaad ka digtoonataan waayo ma jiro qof rabay in ma aragta ama sawiradiisa ama videoyaashiisa ama codkiisa ama numberkiisa Facebook la dhaxdhiga qof doonaya ma jiro. sidaa darteed walaal waxaad kaga hortagi karaysaan siyaabahan hadda soo socdo oon sameyn doona shaashada igala socdo insha Allah. waxaad tagaysaa meesha hadda aan daaraya dhagaan siiyay kora kadib waxa ku soo baxaya saddexdan eray oo meesha ku qoran waa refresh status iyo setting anaga u baahanahay setting ku sii. marka setting ku dhufatid kadib wuxuu ku soo saaraa macluumaad badan. macluumaadka waxa ugu horeeya oo ku soo saaraa meesha furaha ku sawiran yahay ee account ay ku qoranta accountiga ayaa dhagseynaysaa kadib wuxuu ku soo saarayaa shaashadan kale marka meesha ugu hooseysa qoraalka ugu hooseeya waxa waay meel waxa jirta calaamada saxda ah calaamad u saxan ay saaran tahay ee cagaarka ah. meesha ayada waxa ku qoran share my account info wuxuu leeyahay macluumaadkayga la wadaag yaa la wadaagayo. marka meesha ka soo hooseysa digsi akhris wad arkaysaa wuxuu ku leeyahay with Facebook to improve my Facebook ads. marka wuxuu leeyahay macluumaadkayga la wadaag Facebook qof doonaya marka ma jiro inuu Facebook macluumaadkiisa la wadaago. marka walaal si aad arinta ugu hortagto waxaad sameysaa calaamada ka qaado kaliya dhagkasi marka ka qaado qoraalkan ku soo saaraya qoraalkan markuu ku soo saaro meesha ugu hooseysa ay ku qoran tahay cancel iyo don't share ku dhufo dhagsi خلاص accountigaada hadda saa ku xiran yahay Facebookna ma arkayo numberkaada sawirro kuwaadana ma galayaan security buu ku yahay wixii hadda ka dambeeya saa ula socda insha Allah. waa jid aad iyo aad u fudud saana hal iskaga xir haduu Ilaahay roon yahay. waa walaalkiin Ciise Shukri Cali. wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.